waxaa ka sugnaaday nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi ama uu sheegay in dumarku ay yihiin kuwa ugu badan ee gelaya naarta. cimraan ibnu xuseen xadiid uu nebiga ka wariyey sallallahu calayhi wasallam ayuu nebigu yidhi, waxaan eegay jannada, waxaan arkay inay yihiin dadka ugu badan kuwa fuqarada ah ee aan waxba haysan ee cayrta ah. waxaan eegay sidoo kale naarta, waxaan arkay dadka ugu badan ama ehelkeeda ugu badan inay yihiin dumarka. waa xadiid ay wariyeen Bukhaari iyo Muslim, waana xadiid saxiixa. haddaba sababta arrintaasi ama sababta ay dumarku ugu badan yihiin naarta ayaa la weydiiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam. cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi, rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waxaa la i tusiyey naarta, mana aanan arkin muuqaal ka foolxumo badan, waxaana arkay ehelkeeda ugu badan inay yihiin dumarka. saxaabadii waxay dhaheen, nebi allow maxaa sababay? wuxuu yidhi, waa kufrintooda. waxaa la yidhi, ma ilaahay bay ku kufrinayaan? wuxuu yidhi, waxay ku kufrinayaan dhaqan wanaagga qoyska, waxay ku kufrinayaan ama ay inkirayaan wanaagga iyo ixsaanka loo sameeyo. haddaad middood wanaag u samayso sannadka oo dhan oo ay kaa aragto shay kale oo iyadu marka ay kahanayso, waxay kugu odhanaysaa oo ay ku leedahay, weligay khayr kuguma arag. haddaba haddii ay sidaa tahay, waxaa loo baahan yahay inaan isxasuusinno waxyaabaha ugu badan ee ay dumarku jannada ku geli karaan, maadaama la sheegay inay ugu badan yihiin naarta. taasi micnaheedu maahan in qof kasta oo dumara oo dunida joogaa naar loo qoray, laakiin waxaa loola jeedaa waxa naarta gelayaahi waa qofkii laga helo tilmaamahaasi la sheegay ee ah abaaldhaca ama kukufrinta nicmooyinka iyaga loo galay. haddaba waxaa ka mida sababaha ugu waaweyn ee jannada lagu galo iimaanka ama rumaynta Alle iyo camalka wanaagsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka ayuu la xiriiriyey camalka wanaagsan oo wuxuu yidhi, waaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat ulaa'ika asxaabu اljannati hum fiiha khaaliduun. kuwa Alle rumeeyey ee sameeya camal wanaagsan, rag iyo dumarba way isugu jiraan. haddii qofka laga helo iimaan dhaba kadibna uu sameeyo camal wanaagsan, wuxuu ka mid noqonayaa asxaabuljanna, ha noqdo qofkaasi lab ama dhadig. wuxuu yidhi allah sidoo kale, ina aladiina qaaluu rabbuna allahu humma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. kuwa dhaheen rabbigeen waa allah kadibna toosnaadeen, dushooda ma ahan cabsi, sidoo kalena dushooda murug ma ahaanin. waxaa ka mida sababaha lagu geli karo jannada taqwada iyo ka cabsashada allah, iyo inaad og tahay inuu allah kuu jeedo mar weliba. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi, alaa ina wliyaa'a allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. owliyada alle iyo xigtada alle ama dadka owliyada ah dushooda ma ahan cabsi, sidoo kalena dushooda ma aha murug, waa kuwo Alle rumeeyey sidoo kalena Alle ka cabsada. haddaba haddaad maqasho owliyo, waa dadka Alle ka cabsada ee maahan dadka wax sheegsheega ama lagu sheegay inay yihiin kuwa buuba. waxaa ka mida sababaha jannada lagu galo in la adeeco allah iyo rasuulkiisa. sidoo kale waxaa ka mida sababaha lagu galo jannada jihaadka dar alle. sidoo kale waxaa ka mida sababaha in allah loo toobad keeno mar weliba. waxaa ka mida sidoo kale waxyaabaha jannada lagu galo cilmiga in loo dalbo dar alle. waxaa ka mida waxyaabaha jannada lagu galo acmaasha khayrka iyo wanaagga, sida kaalmaynta dadka. allah wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu alkhayra lacallakum tuflixuun. kuwa Alle rumeeyo rukuuca oo sujuuda oo caabuda rabbigiin, sameeya samaha iyo wanaagga, waxaad mudan tihiin inaad guulaysataan. waxaa ka mida in xajka lagu baarinimo sameeyo. waxaa ka mida salaanta in la faafiyo, dadka masaakiinta la quudiyo, qaraabada la xiriiriyo, salaatuleylka la tukado, in wax la sadaqaysto, in hadalka run laga sheego, in ballanta la oofiyo, in ammaanada la guto, in farjiga la ilaaliyo, in aragga la laabo, in addinkaaga iyo carabkaagaba ay ummaddu ka nabadgalaan. sidoo kale waxaa ka mida sababaha inaad shay weliba ka xisaabsato ajir, welibana ku sabirto dhibaatooyinka, kuna sabirto in ilmuhu kaa dhintaan ama dadkii aad jecleed ee akhyaarta ahaa ama dadkii xulka ahaa agtaada. waxaa ka mida kafaalo qaadidda agoonta. waxaa ka mida booqashada qofka xanuunsan ama walaalka muslimka ah inaad dar alle u booqato. waxaa ka mida inaad dayn u cafiso qof miskiina ood ku lahayd, taasi way ka farxinaysaa. haddaad walaalka muslima ka farxisana, allah adigana wuu kaa farxinayaa.
waxaa ka mid ah sidoo kale waxyaabaha wanaagga badan ee jannada lagu galo inaad booqato qof xanuunsan, inaad raacdo janaasooyinka ama aad xaadirto, sidoo kale inaad u naxariisato masaakiinta. haddaba dhammaan fursadahan faraha badan dumarka waa ay u furan yihiin. way samayn karaan camal wanaagsan, way kafaalo qaadi karaan agoon, way sabri karaan kuna sabri karaan ilmahooda oo ka dhinta, hadalka run bay ka sheegi karaan, ballamaha way oofin karaan, ammaanadana way ilaalin karaan, farjigooda way ilaalin karaan, araggoodana way laabi karaan. dhammaan waxyaabahani oo dhan waa fursad u furan qof kasta oo muslima oo doonaya inuu guulaysto aakhiro. haddaba waxaa jira xadiid nebigu uu ku sheegay sallallahu calayhi wasallam dumarka waxa looga baahan yahay si ay jannada u gasho. wuxuu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, haddii gabadhu ay tukato shanteeda, yacni 5 salaadood ee lagu waajibiyey, oo ay soonto bisheeda, yacni bishii lagu waajibiyey ee ramadaan, inta aan ka ahayn maalmaha ay qabto dhiigga caadada, oo ay xafido farjigeeda, yacni ka xafido xumaanta iyo xaaraanta, ayna adeecdo ninkeeda ama zawjkeeda iyadoo aan ku adeecin macsiyo, jannada ayay gelaysaa. haddaba gabadhii laga helo inay 5 salaadood tukato, bisha ramadaanna ay soonto, farjigeedana ilaaliso, ninkeedana ay adeecdo, waxay gelaysaa jannada. haddaba gabar waliba waa inay ka faa'iidaysataa fursadahaasi u furan, maadaama ay tahay qof u nugul shaydaanka oo doonayo mar walba inuu waswaasiyo. shaydaankuna dad buu sii diyaarsanayaa, wuxuuna doonayaa inuu u kaxeeyo albaabkii jahannama. ilaahay ha naga badbaadiyo jahannama, waxaanu ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu irsaaqo jannadiisa, dhammaan rag iyo dumar. markaan ka sheekaynayno dumarka oon leenahay waxa ugu badan ee naarta gelaya waa iyaga, micnuhu ma ahan in raggiina la hilmaamay. waxaa hubaala rag badan oo samaynaya acmaal qaldan oo aan diinta ilaahay ku jirin, haddii ay sidaa ku dhintaan in xisaab badan ay sugayso. haddaba labada dhinacba, rag iyo dumarba, waa inaysan isdhigan oo ay miisaankooda iyo kaydkooda aakhiro wax badan ay u sii hormarsadaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xifdi qur'aanka walaashayda hagaagsan, si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan, taqwaduna ha ahaato la jirkaaga, hamigaaguna ha sarreeyo qaba hawlsan. astur jirkaaga ha noqon mid hallaysan, horumarkaana u malaysay jir la hoolay, rabbi markuu ku qalqaayay runahanti, suuradaadii buu ka yeelay si hagaagsan. xifdi qur'aanka walaashayda hagaagsan, si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan, taqwaduna ha ahaato la jirkaaga, hamigaaguna ha sarreeyo qaba hawlsan. markii aad howl qabanayso duhub qaadan, ha ku darmin ragga oo diinta ilaali, haddii aad taasi samayninna ogsoonow halisadu tahayay iyo waraaba ha raadsan. xifdi qur'aanka walaashayda hagaagsan, si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan, taqwaduna ha ahaato la jirkaaga, hamigaaguna ha sarreeyo qaba hawlsan. hadalkayga yeelo shaydan ha rumaysan, si uusan hoogiyo ba'a kuugu hogaamin, dhaqankaagana weligaaga ha ka leexan, oo hagaaji kana yeel mid un habaysan. xifdi qur'aanka walaashayda hagaagsan, si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan, taqwaduna ha ahaato la jirkaaga, hamigaaguna ha sarreeyo qaba hawlsan.